ayaa oday lahayd 5 sano ayuu qabay. daariin ayaa la yidhaahdaa haweenadaas. wax caruura uma dhelin. waxay ku fikiraysay maalinka ay noqon doonto hooyo ay ilmo yeelan doonto. ilaahay bay baryaysay rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay walad saalixa u siiyo ayay baryaysay. in badan ayay ducaysan jirtay, ilaahu walad isii, ilaahu 5 sano yaan ku baryayaa rabbiyow walad isii, ilaahu walad isii. aad bay u ooyi jirtay. waxay ku fikiri jirtay maalinkai hooyo noqon doonto, ilmo yar arki doonto ayay ku fikiraysay. haweenaydii waxay is aragtay isbeddel bay iska aragtay. caadadii baa ka joogsatay, iyadoo madax xanuun leh is aragtay. waxay aragtay iyadoo isbeddeshay ayay is aragtay. dhakhtarkay tagtay way isbaadhay. odaygaa raacay, wuxuu dhakhtarkii u sheegay inay uur leedahay. way faraxday. farxad 5 sanay sugaysa. farxad way isqaadi kari weyday. dadkeygii bay ugu sheegtay farxad. waa la iskugu yimid farxad. ducaa la sameeyey. wiilkii ay sugaysay ayaa yimid, uu dhashay. waxay u bixisay muxamed ayay u bixisay. laakiin wiilka waa lagu jeexay. aad bay ugu faraxday. wayna ku dhibaatootay jeexitaanka ilmaha lagu jeexay ku dhibaatootay. odagayga waxay ka codsatay in ay u qabto haweeney u shaqaysa, khaadimad iyo qabo uu qabtay. waxaa jiraysa islaan da'ah oo faqiirada oo miskiinada oo guryaha u shaqaysa ayaa jiri jirtay. islaantiibuu u keenay si ay ugu shaqayso. markay 7 u shaqaysay ayaa waxay ku tiri, haweenaydii daarin bay ku tiri, islaan da'aan ahay, laakiin inan yar baa guriga ii joogta anuu aan dhalay. inantaasaan kuu keeni ha kuu shaqayso, anaana shaqada bari maalimaan la joogi. ay ogoloo bay tiri. waayahay bay tiri. sidii bay inanteedii yareed ba u keentay. inantii baa ay shaqada tusaysay. 20 maalmood ayay u shaqaynaysay. islaantuna ay ag taagneed gabadheeda. tayad da'deedu 17 jir ayuu yahay. aad bay u qurux badantay. way soo labisan jirtay markay gurigan imanayso, way soo qurxin jirtay, soo labisan jirtay, markaas iman jirtay. daarin ba aragta tayada mar walba isa soo qurxisa. waxay ku tiraahday soo qurxin. way cabsanaysaa, odagayga u cabsanaysaa inay meesha fidna ka dhacdo. may buu ku yidhi, maxaa dhibaato ah? iyadoo foolxum intay ku iman lahayd soo qurxiso dhibaato male. inay faliisiiso ayay doontay. waxay tiri, wuxuu ku yidhi may 40ka dhammayso kadibna markaa iska faliisi, laakiin ha kuu shaqayso. tii yaray gurigay ka shaqaysaa, wayse soo qurxisaa. 37 maalmood markay u shaqaysay ayaa gabadhii daariin xumadii dhiiggii nifaaskii ayay xumad ka qaaday ee ku xanuunsatay. odaygii ayaa sida caadadiisa si aan ahayn ayuu subaxdii markuu soo baxo uu iman jiray, u waraysan jiray, sideed xalay ahayd, waa adigii xanuunsanayay, maxaad? subaxuu iska soo kacay, baabkii ka baxay. way shakiday, maxaa dhacay bay tiri, talow muxuu ii soo mari waayey oo u baridin waayey? way shakiday. gabadhii shaqeedda ahayd ba u dhawaaqday. gabadhii ayaa maqli weyday. aad bay u xanuunsanaysaa. way soo kacday, iyada raadinays. aqalkii bay dhex marmartay, way ka weyday. qolkii ay seexanaysay ayay ka raadisay, way ka weyday. guriga xaggii mandaradda ahay bay u kacday. waxay aragtay qolkii odaygaygu u seexanayeen, waa ay wada seexan jireen, oo dharkii hurdada xidhan tahay oo hurido lugta du saartay. albaabkay furtay, waaba gabadhii oo, naa waa maxay bay tiri, waxaad samaysay? way ku qayliday. ma waxaad seexanaysaa gurigii odaygaygaad seexanaysa oo dharkaygii baad xidhanaysaa, dharkii hurdada miyaad xidhan? waxay ku tiri, hadalkaaga u fiirso.
ha igu dambaabi gurigan anigaale ma ogid uu i guursaday odaygu in toddobaad laga joogaba caruusad baan ahay arrintiibaa meesha khilaaf baa ka yimid waa la isku qabtay meesha faarfaar bay bilaabeen dumarkii iyo xagashu dhulkaa la isku ladgay meeshii dagaal xoogla ka dhacay kadibna ilmihii yaraabay soo qaadatay axmed mise maxamed buu ahaa maxamed way la soo dhaadhacday hoostay la joogtaa odaygaygii baa yimid isagoo lalaya aawo buu yidhi waxay tidhi kor bay joogtaa wuu dhawaaqay ummu maxamed xaggee joogtaa albaabkiiba furay waaba iyada oo mayda oo caloosha u jiifta oo dhiiga ka soo dareeray meel socdo wuu dhawaaqay khaadimaddii baa soo oroday meeshii bay timid waxay tihi maxaa dhacay subxaana allah iyadoo fiican ayaan ka imid hab kori maa ku idhi meesha ma kori karaysid laakiin way kortay xaggii buu dhawaaq ku dhuftay akhiiran waxay socotaba qisadii dadkii jaarkaa yimid dhakhtarkaa loola orday dhakhtarkii wuxuu sheegay inay dhimatay albaabka fardada albaabka ayaa meeshii laga jeexay ka gashay nabarkuna uu furmay sidaasay ku dhimatay ninkii dhakhtarka ahaaba waxa uu yidhi miyuuna qofin la joogin markaas may buu yidhi wiilkayga yarmaa la joogay maxamed waa qadar ilaahay baa la yidhi saasaa lagu aas 3 maalmood kadib markii la aasay ayuu reerkoogii ayuu u dhawaaqay gabadha xaaskiisan dhintay uu ogeysiiyey gabadhiina way dhimatay ee kaalaya aabbaheed hore u dhintay ahayd hooyadeed iyo walaalkeed baa yimid waxay ku soo tashadeen inay wiilka yarna ay qaataan maxamed ay korsadaan iyagu u soo dhoweeyey inantii shaaqiyadda ahayda meesha taagan magaceegana jamaalaad baa la yidhaahdaa oo meesha joogta ayay aragtay islaamtu waxay ku tidhi odayay ku tidhi gabadhani waa ayo abu maxamedow waa ayo gabadhani waxa uu ku yidhi innahaa zawjati waa haweenaydaydii daarin iyadoo oo nool baan guursaday gabadhan ma sidaasaa bay tihi haa way shakideen markaa waxay tidhi gabadhaydii yaa dilay see u dhimatay waan ka shakisanaya habkaad iigu sheegtay inay u dhimatay gabadhan may joogtay haa gabadha waan qabay laakiin lamay joogin maalinkaas qadar allah dushay fuushay baabka jeedhay naburkaasaa ku furmay gabadhii yareed bay egtay caruusadii jadiidka ahayd waxay tidhi maxamedow i dhegayso إذا كانت الحقيقة اختفت عن المخلوق حقيقة هدي كقرصوناتي مخلوقا أي كقرصونتها حقيقة فلن تختفي عن الخالق إله خالقة كقرصوناني ميس ولي إلو دنبغن مو أما لا إسكا إلو بي لكن إله إلو بمايو وأكو دبص عن أرنتاس أغو أبو محمد وما أبيل أرنتاس waxa uu yidhi kullu insaanin ya'khudu nasiiba qof walba nasiibkiisuu qaadan way dhimatay nasiib abu maxamed waxa uu doonay inuu sharaab iyo u shubo oo iska diiday islaantii way xanaaqsan tahay waxay tidhi ilmahan korsanayna annagaa ka haysanayna waa yahay buu yidhi waxa uu ku yidhi bishii walba masruufkan keeni may bay tidhi annagaa korsanayna adeerkii ayaa wiilka qaaday way baxeen haweenaydii shaaqiyadda ahayd jamaalaad la odhanayay gurigii viilada ahaa ayay ku nimcaysataa oo ku dhex noosh marna dushay tagtaa marna hoos nolol fiican ayay ku noosh faqiirnimadii way ka raysatay xaalkeegu wuu wanaagsanaaday sanad kalaa soo maray si wanaagsan sanad kalaa soo maray si wanaagsan carruur bay u dhashay 8 wiil iyo 3 hablood ayay u dhashay waa imise 11 ayuu dhashay maalin walba qurux baa u biiraysay
مسكينات بقت فقيرة أو وحدها يسب نمعد بسوقش لكن ذنبي قميرة إلهي أدونك سواء كاذية مركو قبتنا كما سيبتو iyada oo nimcada ku nool ayaa odagayga waxay ku tiiri waxaan doonayaa inaan soo yara dalxiisno in yar hawada soo yara bedelayna magaalo kale nageeya soo yara dalxiisno waayahay buu yiri baabuur ba ku qaaday way iyada iyo caruurteedii oo dhan 12kiiba isagana ku waday baabuurkii baa la qalimay gabigood waxaa ka badbaaday iyada iyo wiilkeygii weynaa ee curadka ahaa bas intii kale way ku dhinteen iyadii lafta dhabarka ayaa jabtay wiilkeygiina iyo gacanta iyo meeluu ka jabay laakiin waa iska fayowya markii ay soo miyirsatay ayaa waxay ogaatay in caruurteedii inankaas uu ka nool yahay 10kii kale inay dhinteen ay ogaatay iyadiina waxaa ku dhacay dhinac baa baktiyey باراليزيا با كدعي 3 سنه ay dhakhtarka ku jirtay wiilkaygi 2 bilood buu ku jiro ka soo baxay noloshiiba hadda ku culusaat wala bilaabay dambiga bilaabay waxay ku socotaa waa kursi ya lagu wadaa dadka laga laxaad kale kursiga ay raacaan ay ku fadhiistaan ay ku socotaa wiilkaygi ayay ku tiri ii kaale dhakhtarkan ka soo baxay baabuurku soo kaxaystay isagana wadada markuu soo socdo baabuurkii la rugmaday isaguna wadadu ku soo dhintay wax u yimaada way weyday waa kaligeed laakiin lacag baa leedahay la soco dhakhtarkii ayaa reerkoogii bay raadiyeen aabaheed iyo walaalkeed baa yimid si ay u qaataan waxaa yimid محمد ما تقرأنسا محمد وويلكي وأوديكي ودالي أيا يمسير دحالكي آبيه وحقوقاته وحا لسعتي معيدي أيا لسعتي سلانتي دا شي دارين قبردي ماشي سوتها قنتهي وحي تري markay islaantii aragtay ayay xasuusatay inay dambi gashay waxay ku tiri habar yar maad xasuusanaysaa hadalkaagii adigu tiri ida alxaqiiqatu ikhtafat can almakhluuq xaqiiqadu hadday ka qarsoon tahay makhluuqa dadka ay ka qarsoon tahay ilaaha khaaliqa kama qarsoona maxasanta haabay tiri waxay tiri saamixni ana alatii qataltu daariin gabadhaadii daariin anigaa dila isaamax ilaahay waa kan ii qabtay caruurtaydii oo dhan waan waayey anigana waa ka dhabarkaa la iga jebiyey nolosha qadhaadh baan ku noolahay isaamax islaantii way ooyday waxa ay tiri ilaahay nolol xun ha kugu noolaysiiyo aakhirana ha kugu cadaabo waxa ay tiri odaygii waan waayey awlaadaydii waan waayey shabaabnimadaydii caafimaadkaygii waan waayey in yar isaamax islaantii iyadoo cadhaysan oo ooyeysa ayay ka baxday jamaalaad xaggii bay reerkoogii la joogtay aabbaheed baa dhintay walaalkeed ayaa u hadhay lacagtii yaraydee soo dhaxashayna isagaa ka qaatay khamru ku cabbay wuu ku zinaystay isagiina akhiiran si xun buu u dhintay jaarka ayaa lacag u soo ururin jiray sadaqadaa la siin jiray jamaalaad keligeed ayay ku nooleed maqsin yar oo cidhiidhiya cillay ku dhimatay waxaa lagu gartay dhimashadeedii meydkeygii ayaa meesha ku qurmay markaasay jaarkii uriyeen meydkii cadaabka aakhirana waa ka daran yahay dembigu waa sidaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu kaadin laakiin maalinka uu ku qabto rabbi ku naxariisani maayo waad iska noolaan waxoogaa waad iska jiri
laakiin maalinka ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala